بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال نعم waxaa marti noo ah Sheekh Cabdilcaziz Cali Sacartan wuxuu noo jeedin doonaa insha Allah taala kelimad muxaadarada caawa ciwaankeedu waxa weeye himmatul caaliya ama himmada sare oo qofka muslimka laga doonayo inuu had iyo jeer hamoodo insha Allah taala walaalkeen Cabdilcaziz soo dhawow barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا dadka walaalaha ah qolkan maamula dacwadan muhiim kana wada Allah ka abaal mariyo dadka walaalaheena oo khadka ku jira oo khayrkan waqtigan u soo jeedana ayagana Allah ka abaal mariyo inteeni ka qayb gashay xalaqadii hore ama fadhigii hore waxaan wax ka sheegnay ciwaankaas walaalkeen uu ka dhawaajiyay oo ah al-himma al-caaliya waxaan marka ku qeexnay oo aan ku niri waa waxa qofka ku bixiya qofku inuu wax qabto qofkuna himmadiisu ama hoos bay noqon kartaa ama kor bay noqon kartaa dhowr nooc baan u qayminay himmo aad u hooseysa mid taa dhaanto xoogaa hooseysa laakiin taa dhaanta iyo mid sare taan wada raadinaynaana waa taasan ku magacawnay midda sare ama qofkaas ha u hirgasho oo meeshuu rabay ha gaaro ama duruufo iyo sabab ka hor istaagay ha jiraan laakiin uu og yahay oo uu hadba duruufaha siduu uga wareegaysan lahaa uu raadinayo. arrinta aan kaloo sheegnay waxay ahayd fadhigii hore himmada aan ka hadlayno ma aha waxa markaas baahida ah ee baahida insaanka ku xiran ee markaa aadka ugu baahan yahay ee waa wax meel fog uu fiirinayo isagoo baahi gooni ah oo laxdadaas ku taagan aan ka fakarayna si caadi ah u fakaraya. tusaalayaal baan soo qaadanay dad waqtigii islaamka ka hor ahaa niman muslimiin ahaa laakiin u fakarayay ama hankooda ama hamigooda uu ka liitay kuwii islaamka ka horeeyay iyo dadkii muslimiinta ahaa ee caadiga ah islaamkoodu fiicnaa qaar kamid ah siyaabihii ay u fakarayeen ayaan wax ka sheegnay. kabacdina waxaan dul istaagnay ammaan ay shareecadu ammaantay himmada sare aayado qur'aan ah xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam taasoon marka uga gol lahayn ama aan ku fasiraynay waxa shareecadu ay ammaantay inay marka wax fiican yihiin anagoo usoo daliilsanaynay fadliga ay leedahay himmada sare. haddii marka maanta darsigeenii aan usoo gudbo darsigaas hore intii dhegaystayna waa dhegaystay intii kalena kolley dhalinyaradu waa u duubeen culimadu khayr Allah siiyo. maanta dhowr qodob ayaan marka ka hadli doonaa. qodobka koowaad oo wax ka dhihi doono waxa weeye qaar ka mid ah sifaadka aan ku garan karno ama markiiba nooga muuqanaya qofka himmadiisu sarreyso. badin mayno 3 sifo ayaan sheegaynaa oo isku xiran kuwa kalena waa jiri karaan waana badnaan karaan laakiin 3daas sifo markaad aragto waxaad fahmi kartaa qofkaas qof himmadiisu sarreyso inay tahay. kabacdi waxaan uga gudbi doonaa waxyaabo ka mid ah habka lagu kasban karo himmada sare. waan sheegnay dadka qaarkiis waa u dhalan karaan laakiin waa dad aad u yar laakiin inta badani way kasban karaan. marka asbaabaha keeni kara qofku inuu yeesho himmo sare ama ku bixin kara inuu himmo sare yeesho waxaan ku dari doonaa qisooyin aan badnayn oo ku saabsan dad himmo sare leh bal in aan fiirino taasoo macnaheedu yahay markii qof himmo sare lagaaga sheego inay adigana himmadaadu ay kor u kacdo. kabacdina gunaanadkii iyo gabagabadii muxaadarada ayaan gaari doonaa biidni illahi tacaala. sifaadka ay leeyihiin dadka himmada sare leh ama hankoodu weyn yahay waxaa ka mid ah qofku sidiisaba inuu han weyn yahay yani qofka in hamigiisu weynaado oo hami sare leeyahay macnaheedu waxa weeye qofka oo waxyaabo sare ku fakara qofka oo dumuuxiisa ama hankiisu uu weyn yahay. gadaal baan ka arki doonaa maalinkii qof walaalaha kamida ayaa weydiiyey hanka sare iyo xiisada ama caadifada iska orodka ah farqiga u dhaxeeya. marka
gadaal baa marka ka arki doonaa halkay ku kala harayaane kow qofku inuu horta han weyn leeyahay waxyaabo waaweyn uu ku fakarayo meelo waaweyn uu higsanayo ee markiiba uusan naftiisa oranayn naf yahay halkaas ma gaari kartid faraha ka qaada meel kale raadso uusan ku qancinayn laakiin horta inuu meel fog fiirinayo oo meel sare ku fakarayo oo ku haminayo awoodu haba u diido waa arrin kale يعني مثلا dhaqankii Soomaalida haddaan wax yar dib u fiirino oo Soomaalidu inta badan dad reemiye hay ahaayeen ilaa haddana yihiin tacliinta iyo waxbarashadu aad uma faafsanayn waxaa marka cajiib ahay dadka qaarkiis miyiga jooga in uu miyigii iyo xoolihii iyo beertii inta ka soo xirxirto uu yiraahdo cilmi baan doonanaya qofkaas waxa ku muuqanaysa in uu ka hanweyn yahay dadka agagaarkiisa way dadkaas iyagu waxay isaga qanceen inay bis xoolahoodaas raacdaan ama beerahoodaas fashaan miyigoodana iska joogaan laakiin ninkan waxa u soo baxday in uu cilmi raadsado lidaalika wixii la oran jiray xeraysiga iyo xer inuu qofku xer cilmi noqdo oo cilmi doonto oo hayaamo oo meel ka tago oo meel kala tago oo nolol adag ku noolaado oo cidiisii ka fogaado hamweyni bay ahayd asalka markaad fiiriso siiradii dadkii muslimiinta ahaa iyo salafkii iyo taabiciintii iyo culimadii ummadana waxaad arkaysaa sidaas oo kale ahaayeen iyagu laakiin guryahoodii iyo dhulkoodii cilmi ku helaya ayuu wuxuu u arkayay cilmigaasi inuusan ku filayn amaba markii intii cilmi meeshaas taalay uu qaatay hadda masiid iyo ziyaado u baahan yahay lidaalika uu hayaami jiray oo uu hijroon jiray oo marka cilmi doonan jiray in marka waxa markaas meesha yaala uu ka baxo wax ka badan raadsado himmad sare ama hanweyne ayay ku muujinaysaa haddaan tusaale kala fiirsho oo xagga siyaasadda ah hadda darsiga walaalkeen wuxuu ku gabagabeeyey cabdiraxmaan alghaafiqi oo idiin soo socda iyo taariikhdii andalus wax kamid a inay isbuuca soo socda ama xalaqada soo socda darsigaas dhici doonaan andalus dowlad weyn bay muslimiintu ka aas-aaseen nimankii umawiyiinta oo dowladoodii lasoo jabsaday oo cabaasiyiinta ay ka adkaadeen rag kamida ayaa carabkii halkaa ku gaaray dowlad bay aas-aaseen dowlad aada u weyn bay noqotay nin waagay iska daciiftay oo iska soo dabacday ayaa nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo wax kale iska daaye biyo waraabiyu ahaa biyaha ayuu iibin jiray oo magaalada nimanka caasimada u ahayd qurduba ama dulaydila miday doontaba ha noqotee ayuu biyo ka iibin jiray maxamed ibn abi caamir la yidhaaho ayaa habeen isaga iyo dhowr kaloo saaxiibadiisa dameeraha biyaha ku iibsha wuxuu ku yiri wariyaay haddaan amiir noqdo maxaad iweydiisan lahaydeen amiir wadankan u taliya inta ku qososleen waxay nin wad waalatay malaha caab jimba kugu soo dhacay meel naga fariiso aduu ninkii hameenkaas waxa ku soo dhacday amiirnimadani wax cid gooniya u xabisan inaysan ahayn uu heli karo subaxiibu wuxuu ka tagay dameerkii iyo biyo waraabintii ciidankii bilayska ama shurdada waxa la yiraahdo ammaanka wadanka ama magaalada hayn jiray buu galay nin agood iyo karti iyo caqli badan buu ahaa tartiib buu u dalacay yana warkii idinku daaline maxamed ibn abi caamir wuxuu gaaray inuu noqdo xukunka andalus ninkii khaliifka ahaa ee andalus hayay inuu noqdo ayuu gaaray filidalika الدولة العامرية أياد مالها قاركود كتبت كوارك كرتا الدولة العامرية محمد بن أبي عامر كبعد من مجاهد وآد وجهاده النقضي حتى وحي سيرده سووريسا مركو إيمانيي وحالي لها مال كستا أو مري أو جهاد وقالي عيد يخ أو كمد أيو تفتكو حرين جري مالين كاسو حالي عيديه عن حرتايو لن هلا إيسو أروريو قفرقان هلا يلقليو سي وحكا لهدان وايون ألا أقول دوالو aan yiraahdo ilaahu intaasoo goobood ayaan jidkaaga awgiis aan ku jihaaday oo fi sabiilika aan ku jihaaday waxaan ka wadaa hamiga ninkaas biyo dhaamiyaha ah iyo inta uu la ekaaday ka bacdina uu gaaray inuu noqdo amiiru andalus waxa qof marka aad hamigiisu u weyn yahay ayuu ahaa meel fog raadinina intiina badan hadda Mareykan baad joogtaan 67 sano ka hor dadka madowga ee Mareykanka waxa la socotaan xuquuq weyn inaysan lahayn rag u dagaalameen u qayliyeen maantana waxa la socotaan ninka Mareykanka madaxka ah
inuu yahay nin madow ah. imisa ayaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay la yaabanaayeen markuu is-sharaxayay ama uu doonayo lahaa waxaan doonayaa inaan Mareykanka madaxweyne ka noqdo, bal mar kaliya maahane 2 jeer haddana uu ku ceshaday. yani waxaad arkaysaa marka qofka himadiisu intay la eg tahay, laakiin himadaasi waa inuu dhaqaaq jiro. maalinka horena arrintaas waa sheegnay, dhaqaaq iyo ficil iyo xarako iyo istimraar waa inuu marku jiro qofku oo arrintan uu u dhaqaaqo. haddii kale waxay iska noqonaysaa baan niri tamani ayay noqonaysaa. sifada koowaad ee dadka marka noocaas oo asxaabul himma alcaaliya ay ku sifaysan yihiin waa inay yihiin duu dumuux, qof han weyn oo wax weyn ku fakera inuu gaari karo. sifada labaad waxay yihiin dadka noocaas oo hanka weyn uma aabayeelaan hadday cawaa'id iyo carqaladooyin iyo caqabaad ay ku soo baxaan, isma dhiibaan ee waxay raadiyaan dariiqay uga tilaabsan lahaayeen. saaxibu lhimmati alcaaliya laa yaktarithu bikasrati alcawaa'id. yani carqaladahan waa dabiici inay nolosha ku imaanayaan, in noloshu carqalado fara badan nooca doontaba u dhaqo, ama cilmi raadi ama siyaasad gal ama dhaqaale raadi ama ijtimaaci iyo mujtamaca u shaqee ama dhinaca doonto iyo fildiga aan doonto ka shaqee, inay caraaqiil jirto waa shay dabiici ah. qofku markuusan himmo badan lahayn wuxuu xamaasad marka ay ka tahay hadiiba camalkaas uu ka tagaa. carqalad yar markay ka soo baxdo in badan lidaalika waxaad arkin koorsooyinka iyo dowrooyinka iyo meelaha wax lagu barto ama macaahida ama in la iska buuxsho. laakiin markii koorsadu wax yar socoto ama dowradu wax yar socoto ama qofku xoogaa iskuulkii ama macadkii ama jaamacadii uu isaga tegayo. limaada? hami malaha, xiisad baa waday. qofkaasi wixii waday xiisad bay ahayd, xiisadiina carqalada u horeysa ayay marka ku shiiqaysaa. laakiin qofka himadiisu himma caaliya ku sifaysan tahay waa adkaysaa. carqaladan siduu uga tilaabsan lahaa ayuu markii hore sii qorsheeyaa, ama markay qabsato ayuu markaa maaragtay u qorsheeyaa. waxay yidhaahaan sagaarka oo kale ama sagaaradu markay cararayso oo waxa ceyrsanaya ay ka cararayso, waxyaabaha qaarkood waa laga yaabaa aada u dheereeya inay ka orod badan yihiin, laakiin kuwo badan oo waxaa laga yaabaa sida eyga lagu ugaarsada iyo waxyaaba noocaasa dawacada iyo inay ka dheerayso. laakiin haddana inta badan waxaa guulaysta wixii wax ceyrsanayay. marar badanna waa dhici karta in kii cararayay uu guulaysto. ciladu marka waxay tahay sagaarka waxaa la yidhahdaa marka la ceyrsado wuxuu sameeyaa iltifaata, waxa la yidhahdaa wuu soo jaleecsadaa, dib buu u eegaa, dib buu u fiirshaa. badintaas uu jaleecada badiyey ama iltifaatka ama milicsiga dib u eegidda uu badiyey waxaa dhaca marka in orodkiisii iyo xawligiisii gaabis uu galo, halkaasna cadowgiisii uu kusoo gaaro. qadiyada muhimka marka waxay tahay qofka socda ee camal raba inuu ka jiba gaaro inaanu iltifaatka badin. dadka iltifaatka waxaan ka wadaa dadka himadaada hoos u dhigaya, war waxaan ma samayn kartid, war hortaabaa lagu daalay, war dariiqan waa dariiq dheer, war adiga asalkuuma aha, war waxaan adiga malihid, war ummado kalea loogu talagalay. dadka dhaga hadalkooda faraha badan ee in badan xaawilaya qofkaas inay himadiisa hoos, iyaga waxaa laga yaabaa inaysan ka ahayn, xumaan kama aha, naseexay ka tahay, lakin waa naseexo qaldan, in uusan dheg u dhigin. macnuhu ma aha inaan dadka istishaaro iyo naseexo laga dalbi karin, ma aha, waa laga dalbayaa. laakiin qofku waa inay u kala caddahay naseexada tan wanaaga iyo dariiqa fiican ku tirtirsiinaysa iyo tan himadiisa hoos u dhigaysa, waa inuu kala garan karaa. marka qisay sheegaan xayawaanka lagu halqabsadaa. marka waxaa la yidhahdaa rah, xayawaankan yaree raha la yidhaahdo ayaa waxaa loo qabtay tartan. tartanku marka waxa weeye meel dalcad ah ama tal ah ama dalcad ah ayaa waxaa la rabaa salka inta laga ordo taladaas ama dalcadaas korkeeda in la gaaro. rahuna waa xayawaankaas daciifka, cadad aada u fara badan, orod kasta u fiirso. marka tartan la bilaabayo kooxa badan baa bilaaba, orod dad badan baa bilaaba, musaabaqada qur-aanka dad badan baa bilaaya, laakiin ugu dambeyntii 1 iyo 2 iyo 3 ayaa ku gabagaboobaya. orodkii marka rahi fara badan oo xoog tiradii ka batay ayaa bilaabay. tartiib ayaa marka waxaa bilowday in loo daalo
oo rihi qaybo mar ay daasho waxaa ka mida marka oo meesha ka buuxa oo iska sheeka xayawaan waa ku halqabsanaynaaye rah kale oo isagu ah mutafarrij waxa la yiraahdo ama daawade uu daawanaya markaas waxay leeyihiin allah ma talkaanay ma dalcadaanay fuuli karaan wallahi baan wax fuuli karaa jirin ma awooddaasay leeyihiin wallahi baysan ku dhicin kan hadba qaybaa soo harta hadba qaybaa daahda sidii loo socday dhowr xabaa soo hartay ugu dambeyntii hal rah ayaa joogsan waayay socoyey keligiis ayaa marka wuxuu gaaray qimadii ama baarkii u sarreeyey ee dalcadda hadhow ayaa la weydiiyey waxa la warniyo awooddan kugu jirta oo aad ummadii kaloo dhan uga tagtay maxay tahay markii la baaray waxaa la ogaaday u fiirso ninku rahani waa dhagoola la yiri marka waxaan faraha badan iyo ma gaari kartid iyo halkaas ma tegi kartid iyo halkaan maba ogaba hadalka loo sheegayo intii hadalkaas uu saameeyay ama intii hadalkaas maqlay uu saameeyay way hareen tartiib hadalkii bay rumaysanayaan inaanu meeshan gaari karin laakiin rahi kaliya ahaa ee dhagoolaha ahaa ee isagu aan ku ta'afurin ama aanay saameynin hadalkii dibadda ka imanayay ayaa gaaray halka waxaad arkaysaa saameynta ay leedahay waxyaabaha dadka adiga kula degan ama kuna nool ama ehelkaaga ama asxaabtaada ama waaqaca iyo bii'ada aad ku nooshahay saameynta ay kugu yeelan karaan qofowna marka ha isu malayn inaad ka badbaadaysid ama nabad ka tahay ama saliim ka tahay saameynta dadka dibadda qiso kale sheegaan oo lagu halqabsado allahu aclam runteeda iyo saxeedeeda laakiin waa qiso wax laga fahmi karo qiso ramziya leeyahay markaas ama ha dhacdo ama ay dhicin qisadaasi waxay leedahay nin macallin ah oo jaamacad macallinka ah ayaa wuxuu xallin waayay mas'alo qaacido ama mucaadalo oo xisaab ah ayuu xallin waayay qaacidadii ama mas'aladii ayuu buug ula noqday buugtii wuxuuba ka helay mucaadaladan ama qaacidadan inaanay xal lahayn oo horey loogu daalay buug dad kaloo saaxiibadiisu la hadlay war waxa li bahasha hore xal loogu waayay faraha ka qaad maalinkii dambe ayuu yimid cambaskii uu ardadii uu jaamacadda ugu dhigayay darsigii markuu bilaabay ayuu mucaadaladii dhigay wuxuu nimay mucaadaladaas ayaan la kulmay markaan baarayna waxaan ogaaday wax haba yaraatee xal ah inaysan lahayn kitaabkaasaan ka fiirshay xalkii waxay dhaheen lama hayo hebel iyo hebel oo professor waaweyn ahaan la hadlay waxay dhaheen xalkii lama hayo marka mucaadaladaas xal looma hayo ee ogaada darsigiisina waa iska watay nin arday ah ayaa gadaal ka yimid xiisadii darsigiibuu fadhiistay macallinku wuxuu sheegayay buu iska dhegaystay mucaadaladii meesha ku qornayd ayuu qoray darsigii markuu dhamaadayna waa la iska kala tegay ninkan marka mucaadalada wuxuu u haystaa nooc baarid ama baxsi ama search ah in lagu soo sameynayo oo la leeyahay mucaadaladan search ama baxsi ha lagu soo sameeyo gurigiisuu la tegay bahashiibuu baaray searchkiibuu furay bahashiibuu dhiraandhiriyey waa jajabiyey tafkiik buu ku sameeyey waa xalliyey isagoo searchkii wada oo soo dhameeyey ayuu maalinkii dambe macallinkaasi uu ku lahaa yimid macallinkiibuu searchkii udhigo yidhi macallin waa kana searchkii ama baxsigii aad ii dirtay oo searchkan kuu diray muxuu ahaa waa mucaadaladii maalinkii dhaweed aad ku qortay sabuuradda ama aad meesha ku qortay say doontaba ha noqotay macallinkii inta la yaabay isagoo la qariibsan ardaygan isleeyahay waaba nin waalan ayuu ka qaaday warqadii bahashiibuu furay warqadiibuu furay waa raacay ishuu la raacay waa waday ilaa salkii u dambeysay uu arkay inay xallisan tahay mucaadaladu halka marka waxay yidhahdaan farqiga u fiirso macallinkani wuxuu ku ta'afuray ama saameeyey buuggan yiri bahashan xal looma hayo ee ninka kale uu qoray markuu raadiyeyna waa la isku raacay professor kale ayuu la hadlay sidii buu u sheegay lidaalika bahasha wuxuu ka shaqeynayay oo isku dayayay isagoo quus ah isagoo aaminsan bahashu inaanay xal lahayn laakiin ardadii xataa markuu u geesaas laakiin ardaygan gadaal ka yimid kuma ta'afurin mana ay saameyn hadalka ah bahashani xal ma leh isagoo nadiif ah oo warqadiisu caddahay ayuu bilaabay oo bahashu inay xal leedahay aaminsan waana xalliyey
waxaan ka wadaa waxaan oo dhani waxay muujinayaan qofku marka lagu afuufo waxaan ma samayn kartid iyo waxaan hore loogu daalay iyo waxaan ma gaari kartid iyo waxaan dan kuguma jirto wixii wuxuu bilaabayaa laga yaabaa isagoo awalba himadiisu ay dhulka taalo oo lagu tuntay markuu bilaabana hadii waxa u soo baxaya madmadow isla markii uu cararaya laakiin waxa la rabaa qofka himma caaliya ku sifaysan in waxa ka mancinaya ama ka hor istaagaya ama ka insiraafinaya inuu horumar sameeyaa talaad inuu ku dhufto marka ka bacdi carqaladaha imaan kara uu xaliyo hal tusaalaan idin tusaya Soomaalida oo dhan wada garanayso oo hal meel inay Soomaalida himadoodu caali ka tahay idin tusay Soomaalida meel badan himma caali waa ku tahay oo hadda ma oran karno waa shacab himadiisu wada liidato ma sha Allah namaadij ama tusaalayaal aad u fiican aadna u qurxoon baad meelaha qaarkood ku arkaysaa ama ku maqlaysaa oo aad mushriq u ah oo u qurux badan laakiin dhinaca idin tusay waxa weey intiina badan ee hadda khadka ku jirta reer galbeedka joogtaan kulligiin bal xasuusta juhdigii iyo dadaalkii aad ku bixiseen markaad rabteen inaad soo dhooftaan oo reer galbeedka u soo dhooftaan juhdi aan la xisaabi karin xargo isku xirxir tiradii ka batay qaylo dhaan aan xad lahayn qof baa laga yaabaa in 2 3 4 jeer la soo celiyay uma aabayeelin kuba laga yaabaa inaan wax kharash haysan laakiin suu ku keenaba waa keenay mid baa laga yaabaa in la celiyay haddana waa soo noqday waxaan isdhihi karaa meesha ugu fiican oo Soomaalida himadoodu tubka ay wada tahay waa markuu kacaanka safarku galo mar hadduu kacaan safarna galo himadeenu cirka isku shareeraysaa boqolkiiba kun bay istaagaysaa laakiin meelaha kale waa iska allow sahal waa qofba iyo intii waayo ma helin u fiirsada qofkanu ma helin meelaha kale dawaaficdii gaarsiin lahayd waxaan inuu aad u sameeyo ama himadiisa ku bixiyo oo ku tirtirsiya laakiin yawmiyan wuxuu arkaa maalin kasta ama maqlaa dadkii baxay iyo qisooyinkooda iyo horumarka ay sameeyeen iyo inay shaqo heleen iyo inay waxbarasho heleen iyo inay xuquuq heleen iyo inay baasaboor heleen iyo hawlaha ay wadaan iyagoo soo noqday iyo maalgashada wadanka ay geliyeen iyo kuwooda macallimiinta noqday iyo kan waa daafic waxay ku bixinaysaa marka dadkaas warkoodu in isagana himadiisu ay kacdo meeshay gaareen uu gaaro qofkaas marka waxa la rabaa himadiisii soo dhoofku inta ay leekayd inuu himooyinkiisa kalena gaarsiiyo tiisa cibaadada tiisa waxbarashada tiisa dadka wax u qabashadooda tiisa inuu tug kasta halkaa gaarsiiyo oo wuxuu ama cala al-aqal fildiga iyo ikhtisaaska uu ku jira ummadda u hayo ay halkaa gaarsiisan tahay hadduu marka maaragtay dhanka tacliinta ama kan diiniga ama kan maadiga dadka u hayo in himadiisa inuu dadka wax bara ah oo usluub fiican u bara ah oo dariiq fiican u horkaca ah inay halkaa gaarsan tahay kuwa dhaqaalaha haysta inay ummadda wax u taraan daa'iman wuxuu kuguma saabsana adige ummadaad ama wax u baratay ama aad wax u haysaayo ogow qodobka saddexaad oo sifada dadka himada caaliga ah leh aan ku garan karno waxay tahay oo markiiba noo muuqanaysa qofka himada sare leh ama hankiisu weyn yahay waqtigiisa bakhayl buu ku yahay waqtigiisu waa bakhayl buu ku yahay waa shaxiix waqti uu ku ciyaaro ama waqti uu dhumiyo ama waqti maqaayado uu ku fariisto ama waqti fadhi ku dirir uu ku galo ama waqti fara badan oo meelaha ku dayacma ma hayo marmar uu u baahan yahay nafis inuu helo ama nafta wax yar u raaxeeyo waa daruuri waa loo baahan yahay laakiin waqtiga raaxada iyo nafiska iyo maaweelada ama tasliyadu waa inuusan ka qaalib noqon oo ka badan waqtigii jiddiga iyo waqtigii dhabta iyo waqtigii wax qabsiga adduuniya aakhiro waa inuusan ka qaalib noqon lidaalika himma caaliya waxaad ku arki kartaa ku fahmi kartaa qofku inuu waqtigiisa bakhayl uu ku yahay markaa ma aragtay laakiin haddaad aragto qof waqtigiisa ku ciyaaraya ogow inaanu himma caaliya lahayn waayo ra'samaalka ugu weyn ee qof uu haysto waa waqtiga rabbi subxaanahu watacaala uu siiyey qof raasimaalkiisa ku ciyaarayna himadiisu meel ma jirto saddexdaas qodob ayaan uga gudbaynaa sifaadka aan ku garan karno dadka himada sare waxaan u gudbaynaa qaar ka mid ah asbaabaha lagu kasban karo ama qofku uu ku samayn karo ama ku yeelan karo ama ku gaari karo himma caaliya waxaan dhihi karnaa sidaan horeyba u niri qaarkood waa ku dhalasho laakiin waxaa la yidhaha dadka u dhashay himma caaliya kama badna 200%.
laba boqolkiiba ayaa la oran karaa qofkaasi himma caaliya ku dhashayo habeenku yaraa waa ordahay isagoo himma caaliya ayuu dhashay waana sifo kasta oo sifaadka bashariga ah xagga markaa maaragtay deeqsinimada waa saas oo kale xagga geesinimada waa saas oo kale yani sifooyin badan oo saasa waxa la marka sifada tabiiciga ah qofka u dhasha sifadan tabiicin abuur alla ay ka tahay waa laba boqolkiiba labana waxa la yiraahdaa si kas hadii loo tababaro ma bartaan oo sifadan ma keenaan laakiin waxaan arkaynaa 96 boqolkiiba sifadani marka waa kasbasho iyo qofku wuxuu kasbaday oo uu ku dadaalay qodobka u horeeya oo sifada caaligu marka waa qodobkaas aan niri waa abuur lidalika asalkaba abuur rabbi subhanahu wa ta'ala qofkan uu abuuray weeye cid riixday ama cid ku bixisay male isaga marka meel weyn arkay isaga marka ku go'aan gaaray inuu meel sare gaaro muxaqiraadka iyo waxyaabahan yar yarna uu ka tilaabsado lidalika waxa arkaysaa culimada qaar kood ilmo ku soo barbaaray agoonnimo ama aabihiis ama hooyadiis ama labadiiba haddana gaaray meel weyn cid aabba gacanta qabtay ama hooyo ku dadaashay ama kan laga yaabo inaanay jirin halka kuwa badan oo hooyadii aabbihi ay ku daaleenna laga yaabo meeshii laga rabay in aan laga gaarin markaa maaragtay imaam shaafici oo kale agoonnimo ayuu wax ku bartay isagoo yar oo agoona ayuu markaa wax bartay ibn xajar casqalaani الحافظ حافظ بن حجر فتح الباري الشيخ قريه كتبتن كلاه فراح بدن نافعه كذلك اساس اللي هذا علماء بدن حتى nimanka waaweyn ee caalamka ka taliyay qaar badan agoonnimo ayay ku soo koreen markaa maarag lidalika mararka qaar kood taxaddi ayaa ku jira oo ah in qof aabihiis joogo uusan ka fiicnaan ee meesha aad iska qaado oo kala waxa la yiraahdaa ninkii hadda Bill Clinton ninka la yiraahdo oo madaxweynaha Mareykanka ka noqday ayaa haday qisadaas waan akhriyay dhab noqoto waxa la yiraahdaa isagoo yar oo galaaska lixaad ah primary school ka galaaska lixaad waxa la weydiiyay maxaad rabtaa inaad noqoto markaad weynaato wuxuu ku yiri waxaan rabaa madaxweynaha Mareykanka inaan noqdaan rabaa buu yiri Bill Clinton abiis ma soo korsan hooyadiis iyo ninkii hooyadii guursaday baa soo korsaday markuu secondary galay ayaa haddana dhulkaas aad joogtaan istidlaac iyo ra'yiga iyo ciyaalka wax la weydiiyay diraasaad iyo search baa iska socda search baa la sameeyaa meel baa la iska dhigaa haddana markuu secondary gaaray baa la weydiiyay maxaad noqonaysaa markaa wuxuu yiri mar labaad madaxweynaha Mareykanka raba inaan noqdo jaamacadii isagoo jooga ayaa haddana la weydiiyay sidii buu ku jawaabay idan markuu primary taagnaa iyo markuu secondary taagnaa iyo markuu jaamacad taagnaa hadafkiisu waa u cadiyay madaxweynaha Mareykanka oo cad hadhowna dariiqeedii buu qaaday wuuna gaaray midna marka waxa la yiraahdaa waa dabiicad waa himmo qofka abuur rabbi geliyay oo kala ayaa marka tusaale loogu soo qaadan karaa taa marka waxa lagu dhameystiri karaa ama qofkii asalka saas alla u abuuray ama himmadiisa xoogaa aanay meeshii la rabay gaarsiisnayn in ilmahu ay helaan tarbiya saalixa usbuuc horena su'aashan waa la weydiiyo ah see caruurta himma caaliya u gelinaa caruurta marka in waalidkood horta iyagu ay u tababaran yihiin habka ilmahan wax u gelin lahaayeen dhibkan haysta aabihii iyo hooyadii way rabaan oo caruurta wanaag way la rabaan caruurtoodana way jecel yihiin laba isma weydiinayso laakiin haddii jacaylkaasu aanu ku lamaansanayn macrifa iyo cilmi iyo garasho habkii ilmahan loo marsiin lahaa dariiqa himada caaliga badan baa naga qaldamaya saas darteed aabba kasta iyo hooyo kasta waxa muhiim ku ah naftiisa horta inuu tadawuriyo naftiisa inuu horay u mariyo hadduu helayo koorsooyin aad baa maanta arrimahaas ihtimaam loo siiyaa hadduu helayo koorsooyin habku ciyaalka ula dhaqmi lahaa ama uu helayo buug uu akhriyo habku caruurtiisa ula tacaamuli lahaa habku u tarbiyeyn lahaa habku maskaxdooda kor ugu qaadi lahaa himmadooda kor ugu qaadi lahaa cibaadadooda kor ugu qaadi lahaa alla ka cabsigooda iyo alla ku xirnaantooda kor ugu qaadi lahaa waa muhiim arrintaasi ee haysu malayn maadaama aabe tahay inay wax kasta ku fiican yihiin ama hooyo niyadeedu fiican tahay inay wax kasta ku fiican yihiin mararka qaarkood waxa laga yaabaa aabahan ama hooyada niyadii waa u fiican yihiin laakiin macrifo male ilmahanaaba wuxuu isu arkaa inuu aabihii hooyadii ka macrifo badan yahay ama ka aqoon badan yahay marka muxuuba ka qaataayo ku u horseedaan
waxaan ka bilaabaynaa tarbiyada ilmaha in horta nafteena kor u qaadno ishorumarino ama koorso ama kitaab ama darsi ama muxaadaro meel un intaad wax raadisid bal horta usluubkaaga aad fiicnaysid ka bacdina ilmihi aad ku dabaqdid wixii aad baratay التربيه صالحه ha ka timaado aabaha iyo hooyada iyo guriga ha ka timaado muallimka ama murabbiga ilmahaas gacanta ku haya waxaa la sheegaa qiso إمام الطبري أضوى ذكرنيسان ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وحو شيغي أنا وحو يريف وقرآن كبرانية أيام معلن كيجيبا وحو يقو يريبو يري خط كيجا قرحونا بيري مركا فرطة إذا أيام قرحونايت خط كيسا كاس وحو يقو يريبو يري إن هذا الخط خط العلماء وفي كلمة دا سراتك أي لا هاي معلنkiisi ayaa fartiisa quruxdeeda markuu arkay wuxuu ku yiri fartaani saas u qurxoon waa far culumo macnaha nin caalimaha tahay iska jir ha isiraysan waxay ku bixisay kelmadaasi inuu gaaro meesha caalimku gaaray bal min akbar al ulama oo noqdo tafsiirka iyo siirada iyo taariikhda iyo xadiiska wad garanaysaan dabari كلمداس هي طبعا تربيه دير لكن كلمده وناكسن ماشي اي ku dhacayso ayaan arkaynaa in hada al-khatt khatt al-ulama ayaa ku bixisay waxyaabaha uu ka sheekeeyay ayay kamid tahay oo ku bixiyay waxa la sheegaa محمد الفاتح سلطانka Uthmaniga ah ee mashhuurka ah in garanayna furtay magaaladii la oran jiray Constantinople maantana Istanbul la yiraahdo Sultan Mohammed al-Fatih in uu sheekh u ahaa nin la yiraahdo Mohammed ibn Hamza Shamsuddin naynaastisuna tahay Shamsuddin ninkaasi xadiis waxa jira culimadu isku qabtaan oo culimada sida Albani iyana ay wax ka sheegeen علماء بدنا أي صحيحيين إمام أحمد بيا حاكم يا وري حاكم صحيح بكل شيء حديث كاس وحديث كأه لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش حديث كاس هذو صح النقطة حلي النبي عليه الصلاة والسلام قسطنطينية آيات فران دونتان وحان نعميستي أمير كفرتي وحان نعميستي جيش كأمير كاسوطة فلذلك إلا لقصوا بلا وقت معاوية ابن أبي سفيان ومضى مسلمين تمركز توحي حاوشي ومردي يخلفدي مسلمين توحي اسكديان إن منك وقاطوا أمانتاس حديث كاسو الشيغي فلذلك من وقت معاوية لقب بلا عيدا بالدري ومويين تبها وقبضنا ذين ذاتك آد عيدا ماذا استقد بالدري مركا قاركوت سند أيه حريري سنيد حدنا ما يدعين إلهي وحو قدري مركا إنا يتعاضه وقت محمد الفاتح دولة العثمانية وحامركا للشيء شيخاس محمد الفاتح شيخ يساء أما مربي يساء أيام مركز توحو كورنجري ويل كاسير عديقة وي أميرك حديث كان شيء حديث كان سوما أركتها نبي يريها أميرك أو أمانيو يعيدن كأو أمانيو عديقة عن نقونية عديقة أميرك عن نقونية wiilkii wuxuu ka dhargay inuu amiirkan magaalada furanayo uu noqon doono isaga falidaalika markuu imaarada gaaray oo xukunka uu qabsadayba isticdaadkii iyo diyaar garowgii iyo xirxirkii wuxuu u galay sidoo magaalada u furan lahaa ilaahayna waa ku guuleysiyay falidaalika laqabkiisa inaanaystiisaba waa tan yiraahdo Muhammad al-Fatih laana magaalo lagu daalay oo intaas lagu hungoobay ayuu furto isaga ilaahay u furay Muhammad al-Fatih تربية فيري مركز شيخيسو مدحو أقلي عذيقة ويا منك أمير كاني لذلك وحرى المها إنسان لقول تربية وإن لقول تربية واللي يرهدو شيخ بعد نقونيسا داعي بعد نقونيسا طبيب وين بعد نقونيسا من وين ومفكرة أياد نقونيسا يعني إن لقول تربية لقد تعلعيه إنه وحن نقونيه لذلك هو كوكا عيا إنه جاري كرم لكن مركان المها نعينه دمين باتهاي weligaa rajo malihid lagaa quusay wax lagaa gaaraya miro lagaa dhalinayo ma jirto ummadii waad ka hartay ummadii waad iga reebtay hadalka xuno wuxuu gaarsiiyaa ummaddu ama ilmuhu inhiyaar iyo niyad jab inuu ku dhaco 100 iyo 1000 maraba aan iska jirno hadallada
حلقة ميل فوقينا نجري لكن عرب كأننا قبتي تربية دينا قلدا أو إن هذا الكحوني إنه صوبه خاصة المها يريد سوق كوريا لقولا دقمه حتى الرسالة ذو وناكسن هذا الكوناكسن سكبداف المها يقف خارج المسلم الإسلام أي حتى لقيا بين السحر الجليسه وحال الشيء النبي عليه الصلاة والسلام رواية دا صدق صحده خالد بن وليد ودبدع إسلام كيس marka walaalkiisu wuxuu ku yiri oo Waliid ibn al-Walid oo muslim ayuu nabigu wuxuu ku yiri baa la yiri ma mithlu Khalid yajhalu al-islam waxa ku dhacay Khalid yani Khalid oo kalamiya islaamka jaahil ka noqda aqligii aawi Khalid aqligiisi weyna haduu noo yimaadana meel weyn baan dhigi lahayn fariintii buu gudbiyay baa la yiraahdaa walaalkiis Waliid ibn Walid kelmadii Khalid marka cirkay gaarsiis ma mithlu Khalid yajhalu al-islam isagoo socda waa tuu yimid oo isaga iyo Amr ibn Aasiyo ay isla yimaadeen radiyallahu anhu lidalika tarbiyada ilmaha la tarbiyeeyo fi sigar xagga muallimka iyo xagga guriga iyo xagga madrasada iyo iskuulkaba waa muhiim lidalika manduumada ama meelaha wax tarbiyeynaya waa inay yihiin meelo isdhameystiraya markuu iskuulkii tarbiyeeyo gurigii tarbiyeeyo malcaamadii tarbiyeyso way isdhameystireen لكن هدو غوريغي تربيينا يو غوريغي قويس في عين يحي سكول كينا وحن لغو برايو تربيه داس دبركay ka jabtay lidalika waxa la rabaa عفوا in qoys kaanu ilmihiisa meel fiican inuu la raadsho oo ilmihi ay ku tarbiyoobaan laakiin intuu xoogaa guriga wax ugu sheego meel ka kala jabinayso ka daadinaysa aan la geynin macallinka naftirkiisa malcaamad qurs dugsiga iyo quraanka waa inuu isna ودمايستر قيبكيسا دعودي iyo masjidkiina waa inay sii dhameystirto intaas oo dhan markay u wada yimaadaan ay isku xirto madax u noqoto qodobka saddexaad ee lagu kasban karo himma caaliya waxa kamid ah ilmuhu inuu ku barbaaro mujtamac himma sare leh mujtamac qiyam iyo akhlaaq sare leh mujtamac قدرينيه شعب قدرينيه قفك انه ميل سره غارو لكن قفك iyo in la carqaladeeyo iyo in la gooyo khaasatan meelaha fasaadku uu ku badan yahay oo ilmihi haduu dadaalo uu san xuquuqdiisa helay haduu jaamacad fiican ka baxo uu san xuquuqdiisa helay haduu dacwo iyo qofkii wada aan lagu ixtiraameyn bal laga yaabo inuu ku mutadib waxyaabahaas oo kale dalika mujtamac ixtiraamaya qofkan iyo himadiisa qofkan iyo waxtarnimadiisa qofkan iyo waxqabadkiisa ixtiraamaya ama mujtamac uu ka helayo qofku baraarujin uu ka helayo ku dayasho uu ka helayo mujtamac tartan ku jira tanaafus ku jira yani kulligood dagaal ku jira qof kasta inuu meel sare gaaro uu rabo marka uu ku dayanayo u fiirso qofku bi'adiisu way saamaysaa hadduu marka bi'a la iska jiifo oo aan waxqabad lahayn oo aan hawl lahayn oo shaxaad lagu nool yahay oo baryo lagu nool yahay oo tuuganimo lagu nool yahay oo laalaab lagu nool yahay uu ku nool yahay bi'adaas uu ka mid noqonaya himma sarana ma yeelanayo hebel iyo hebelba waa shaxaadaan hebel iyo hebelba laalaab bay ku nool yihiin hebel iyo hebelba ihtiyaal iyo tuugaysi bay ku nool yihiin taana maxay waalay laakiin markuu arko meel la wada kalahayo markuu arko meel ummadu dadaalayso markuu arko meel qofkii wax bartay meel markuu arko qofkii wax qabsaday oo meel sare gaarayo lagu ixtiraamayo halka marka bi'ada noocaasi qofka way baraarujinaysa dadka bi'ada noocaasi joogana qofka baraarujin ayay marka ma aragtay ka helayaan wuxuu sheegay Sheikh Maxamed Urayfi rahimahullah daaciye sacuudi aad wada garanaysaan aadna jaanibka tacaamulka dad la tacaamulka ugu fiican oo kutub ka sameeyay waxaan la kulmay wuu yiri wiil dhalinyaro ah darsi ayaan jeediyay marka darsi markuu dhamaaday meel masjid ayaa dadkii islaamayeen waxa marka iiga dhex muuqday wuu yiri wiil dhalinyaro ah oo xoogaa shakligiisa aan isiri xoogaa dabac baa ku jira habku u shanlaysan yahay habku dharka u xiran yahay intii fiicneed marka waqti kuma dhumin uu deystay ninkan ayuu marka rakisay wuxuu yiri waxaan ku yiri buu yiri markaan salaamay tan si fiican gacanta u raxay oo isha uga fiirshay waxaan ku yiri buu yiri wajhuka wajhu daaciya wajigaagu niyahow
weji nin daaci ah ayuu leeyahay waa hadda ninkii dadka ugu dabacsanaaye u fiirso uu qoslay insha Allah ayuu yiri waanan kala tagnay buu yiri dhowr sano ka bacdi ayaa waxaan la kulmay buu yiri ninkii oo masjid imaamka ah oo masjidkiisi aan dacwo u imid waa ninkii hadda uu maalinka fakfaktiisa ka yaabay ogow halka marka fiiri laga yaabo qofku inuu hadal kala dhihi lahaa isagoo khayr doonaya war maxay madax xuneed sidaan u jarat war maxaa kugu dhacay war dadka kale waa fiican yihiin fiiri war yaa dadka asaaga ah fiiri adiga maxaa qofka inhiyaar baa markaa ku dhacay isluub fiican ma aha laakiin ninkii isagoo qalad ku jira ayuu xooga amaan siiyay dafcay ku bixis marka ilmahaaga yaroo fakfag leh haddaad ku yiraahdo adiga aabo islaamkaad kayd u tahay yaa islaamkaad daaci u tahay dadka muslimiinta ku sugaya inaad jahliga ka saarto wax weyn bay kusoo kordhinaysaa ay ogow mar kale wuxuu ku yiri nin aan saaxiibkaynahay ayaan soo salsalaamaa buu yiri marka wuxuu yiri wiil yar ayaa u jooga markaas markuu wuxuu yiri uu yimaado wiilka uu wataa aad baa marka wuxuu yiri wiilka ihtimaam u siiya markuu yimaado saaxiibkay waa la sheekaystaa cigaalkaygaan u xiraa waa ka qosliyaa waa la kaftamaa maalin maalmaha kamida ayaa waxa yimid ninkii saaxiibkay ahaa marka wuxuu igu yiri buu yiri niyo waxaan la yaabanahay buu yiri wiilkii yaraasaad qalbigiisa u qaadatay iskuulka waxa lagu weydiiyay buu yiri ilmihii yaryaraaya asaagiisa ahaa maxaad rabtaa inaad noqoto mustaqbalka marka ninkani Maxamed Cureyfi buu yaqaanaa laakiin hawshiisa ma yaqaano daaci iyo caalim iyo ma yaqaano waxa uu yahay waa ilmo yar wuxuu yiri akunu Maxamed Cureyfi waxaan rabaa inuu Maxamed Cureyfi inaan noqdo yani Maxamed Cureyfi baan rabaa isagu waa Maxamed Cureyfi xagee ku timid tacaamulkii iyo macaankii iyo la tacaamulkii oo la tacaamulay wiilkan uu ka helay hadii marka kulli aabe oo saas ilmihiisa ugu noqdo saaxiib kasta iyo daaci kasta iyo macallim quraan kasta iyo sheekh kasta oo ilmaha saas u soo dhaweeyo waxaad arkaysaa marka ilmuhu inay helayaan dafac weyn oo qofkaas ay ku dadaan marka qofkan qudwa weeye lidaalika in ilmihi qudwa loo helo marka maaragtay hadiyada ilmaha la siiyo tashjiic weyn ayay u tahay oo hatta wax weyn hadaadan u heli karin wax yar markaas aad gacanta ku hayso aad siiso lidaalika tashjiicaasu ama ha noqdo hadiye in lagu tashjiiciyo oo lagu baraarujiyo oo lagu maaragtay tirtirsiyo ama ha noqdo hadal fiican ama ha noqdo wax kale oo loo qabtay aad iyo aad ay marka tashjiica iyo taqdiirinta iyo qayb uga tahay hadii la heli karo hay'ado ama muassasooyin ummaddu samaysato oo ilmaha mutafawiqiinta ee aadka u fiican ee aad maskaxdooda u sareyso lagu marka maaragtay hawlgeliyo oo iyaga dhisa oo kor u qaada ayada naftirkeedu waxay kamid tahay waxyaabaha qofka himma caaliya uu ku sameyn karo ayay kamid tahay waxa kamid ah waxyaabaha qofku himma caaliya uu ka qaadi karo musiibooyinka ummadda soo mara ummadda markay musiibooyin waaweyn soo maraan oo dhib uu ku dhaco waxa marka imaanaya xisaabtan dhibkani muxuu noogu dhacay see uga baxnaa dad badan baa marka waxa laga yaabaa inay ku soo baxaan musiibooyinka noocaas ah oo rad ficiligi dhibkii ummadda ku dhacay say dhibka uga saaraan oo dhibkan uga hortagaan ku soo baxaya haddaan taariikhda wax yar dib idin u fiirino dagaalada loo yaqaano xuruub saliibiya ee dhul badan oo dhulka muslimiinta kamida oo bilaadu sham u badan ay ku qabsadeen qolooyinkii ka soo duulay Yurub dagaalada noocaasi saxiix markay dadku dhulka yimaadeen oo nimankan dhulka ay yimaadeen dadku dhulka yaaleen lidaalika in ciidanka halka ka soo duulay oo ummadii muslimiinta u yimaado dhulkooda iska qabsado waa fahmi kartaa dadku say u daciifeen laakiin markii dadkaas ay dhulka qabsadeen rad ficiligi dhacay waxaad arkaysaa waqtiyada culimada ugu waaweyn ee waqtiyadii dhexe marka laga reebo culimadii hore ee waqtigii nabigu uu yiri kaleey salaatu wasalaam khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunhum uu yiri taabiciintii salafkii hore marka laga seero waqtiyada ugu weyn ee culimada ugu badan ee ugu caansan ee ugu cad ay soo baxeen oo waqtigii marka salimiintu ay dhulka haysteen rad ficiligi ummadii ay kacday in wax la barto ummadda jahliga laga saaro ummadda loo horkaco marka maaragtay khayrka ummadda jihaadka lagu booriyo wax la baro magacyada haddaan wax yar idin ka sheego ma wada sheegi kare xasuusta magacyadan ibn Qudamah al-Maqdisi
العز ابن عبد السلام، ابن عساكر، الإمام النووي، علامة ابن القيم الجوزية، شيخ الإسلام ابن تيمية، المفسر الكبير ابن كثير، حافظ المزي، ابن الأثير، صاحب الكامل. كل هذه الأسماء هداد أفير ستم مقعيدا ومقعيدي صوب حي لبدي قرني السليبيون تقول كمسلمين تهيستين مقعيدا وزني جودة يحجمي جودة وتفهمي كرتان مركب وحبا هذا مدمدقو تعليقين مايه حاجة كلا مقعيدا أباندولياشي أما قياداتكي أما هجامياشي أما صلادينتي مسلمين تأي وقتيدا صوبحي أيضا والله سعوتان عماد الدين زنكي يويلكي نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي يصابي من النودنقد يا أبو الفداء سيف الدين قدس ظاهر بابرس كل قد وقت جاس فيري مركب وقت جا نبضو أمضو أي تهي تمضو نبض إستجاب سعوتها لكن مركو أمضو لبو يمادو أما حق علمي هالنقطة أما حق احتلال هالنقطة أما حق dib dhac ha noqday umadu marka waxay u tafaxaydataa sidii dhibka looga bixi lahaa falidaalika dadka himadoodu weyn tahay ayaa soo baxa oo marka ma aragtay soo muuqda waxyaaba marka dhibka sidii lagu xalin lahaa looga hortagayo ayay kamid tahay waxay dadku ku soo baxaan waxyaabaha qofka himadiisa saacido himadiisa kor u qaada waxa kamid ah in qofku hadaf uu xadito haddaad iska shaqeynayso oo si haamish ah isaga shaqeynayso waad shaqeyn wayna fiican tahay laakiin waxaa ka sii fiican oo himadaadu cirka isku shareeraysaa markaad hadaf xadidato oo tira hadafkaas inaan gaaraan rabaa oo hadafkaas habeen iyo maalin aad xaggiisa u sii dhawaanaysid markaad tilaabo u sii qaadaba himadaadu waa sii kacaysaa waayo hadafkii ayaad u sii dhawaanaysaa hadafka oo xadidanna waxyaabaha himada ama wuxuu ka mid yahay lagu gaaro ama himada kor u sii qaada ayuu ka mid yahay ilmuhu markuu yar yahay oo la yiraahdo waxaas iyo waxaas laga rabaa la yiraahdo waxaan ka rabaa inaad noqoto caalim ummadda diinka bara midna lagu yiraahdo waxaan ka rabaa inaad noqoto tabiib ummadda daweeya midna la yiraahdo waxaan ka rabaa inaad noqoto muhandis ummadda wax u qabta midna la yiraahdo waxaan ka rabaa mufakkir ummadda wax u qora yani waa loo xadiday khudwadiisa waa lagu saaciday hadhow hadday ilmaha dhinac wax ka adkaato waa loo bedeli karaa laakiin waxaan rabnaa min al-awwal in ilmaha loo xawido secondary uu gaaro ama ibtidaai i'daadi uu gaaraba la yiraahdo in la xaliisla xad maxaad jeceshahay maxaad ku fiican tahay maxaad rabtaa secondary haduu gaaraba wajhada ilmuhu waa inay xadidan tahay meesha la rabo inuu gaaro waa inay xadidan tahay laakiin hadii la yiraahdo cuntada hal la siiyo sida loo badan yahay iskuulkana hal loo diro wax hadaf oo uu dareemayana oo waadix oo uu higsanayana ma ay jirto hadda waxay noqonaysaa marka dariiqaas caamka iyo bi'adaas caamka meeshay u jihaysan waxa la sheegaa 1961 John F Kennedy oo markaas madaxweynihii Mareykanka ahaa ama intuu isu diyaarinayay madaxweynenimada markuu isu diyaarinayay xal dhaha sharaxida iyo campaign ayuu wuxuu yiri baa la yiri isagoo shacabka Mareykanka la hadlaya waxaan rabnaa buu yiri aqdigan intuusan dhamaan aqdigu waa 10 sano 61 baa la joogaa 70 ku dhamaanaya aqdigan intuusan dhamaanin waa inaan nin dayaxa u dirno idan hadafku waa waadix intaanay 10 sano dhamaanin waa in Mareykanku marka tartan adag baa waxa kula jira اتحادكي سوفيتيga oo waqtigaas dayax gacmeedya la diraya lidalika sofiyeedku markaas ay inay direen baan u maleyn ay leeyka ayay marka direen oo noolihii ugu horeeyay oo samada loo diran noqday marka Mareykanku marka wuxuu rabaa inuu meel kale ku hormaro oo qof bini aadam uu ku hormaro lidalika wuxuu yiri aqdigana intuusan dhamaanin 10 sano intaysan dhamaan waa inaan nin u dirno dayaxa Mareykanka joogtaan waa la socotaan 1969 ayuu hadafkaasi dhacay markii Apollo 11 loo diray xagga dayaxa loo diray laba nin oo rajulul fadaa waxa la astronomisna ay la socdeen oo ay raaceen oo dayaxa ku daldegeen ninkii ayaantii dhaweyd dhimanayay Neil Armstrong dhimanayay markaa ma aragtay waxa cajiib ah u fiirso mulaaxadadan marka u fiirso Apollo 11 dadka wax ka kiciyay ee wax ka dhisay ee aqligiisa wax ka lahaa ee wax ka hagayay waxa kamid ah caalim muslim ah oo masri ah oo liya Faruq al-Baz ayaa kamid ah wuu ka soo waayay
wadankiisi inuu wax u qabto ama hawshaas hawl lamida uu u qabto uu ka soo waayay markuu ka waayayna inuu marka halkaas iyo wadanku wax ku bartay u shaqeeyo ayay marka naftu biday way qadariyeen ikhtisaaskiisii iyo cilmigiisii iyo aqligiisii ayay ku qadariyeen ilaa aboole ilaban uu wax ka hageeyay marka Faaruq al-Baasi lidalika hadafku inuu cad yahay oo qofku meesha uu rabo inuu gaaro loo cadeeyo ama hadduu qof weyn yahay uu cadeysto waxyaabaha himada qaada ayay kamid waxa kamid ah waxyaabaha himada kor u kiciya musaaxabatu ashaabi al-himma al-aaliya dadka himadoodu sareyso inaad saaxiib la noqoto dadka himadoodu sareyso inaad la jaan qaado inaad la fariisato inaad la cunto inaad la cabto lidalika haddaad la fariisato wax ku darsato saaxiib la noqoto kuwa himadoodu dhulka joogto dhulkay kula aadin kaliya kuwaas waxaad u tagi kartaa haddaad isleedahay himadooda kor u qaad haddaad isleedahay wax gaarsii haddaad isleedahay wax ka bedel haddaad isleedahay saameyn iyo ta'siir ku samee u tag laakiin maalinkaad aragto in lagu jiidanayo mararka qaarkood waxyaabaha dhaawaca kamid ah nin mutadayyin oo akhyaara oo fiican oo dacwada ku fiican diinka ku fiican cibaadada ku fiican ayaa wuxuu la degin dad iskaabulo iyo dhalinyaro ama soolane laga yaabo in xoogaa ay liitaan ama ay cagjiidayaan halkii ninkii uu soo jiidi lahaa ayaa waxaa arkay ninkii oo markii dambe masaajidkiiba ku yaraaday limaada meesha uu degay baa marka qaldanayd dadka uu la degay baa qaldanaa calala qal hadduu markii hore ismahadiyey oo uu islaha kuma saameynayaan markuu arkay in la bilbilaabayo inuu cagaha wax ka dayay ahayd lidalika waxaad arkaysaa saxaabadu maxay kulligood camaaliqa u noqdeen midkii khayr allah siiye siirada idin socotay saxaabadii sida laydinkaga sheekeeyey taabiciintii sida laydinkaga sheekeynay midkaad soo akhrisaba kii kaloo ku ilowsiinaya caawa haddii mid laga sheekeeyo waxaad isleedahay kanaaba ku jira waa kii dadka laga qaadanayay habeen daba marka mid laga sheekeeyo kii hore waxaad leedahay kanaaba ka sita limaada lianno kulligood waxay saaxiib la ahaayeen rajul cimlaaq ah oo ah maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bacdina iyagaa saaxiibo noqday iyagaa isla tartami jiray iyagaa munaafaso ka dhaxaysay cumar iyo abubakar oo tartamayaad arkaysaa u fiirso cumar abubakar baan ka masayri jiray cibaadadiisa iyo aan tartan kula jiray buu yidhi ilaa aan isiraahdu yidhi wax kastoo abubakar uu sameeyey samee lidalika waxaa la rabaa in aad saaxiib la tahay oo wax ku darsatid oo aad ka shidaal qaadanaysid dadka himadoodu caali tahay lama rabo inaad marka hoos u noqoto oo dad kaa hooseeya aad fiiriso waxyaabaha aad himada u sameeya ama himada u kiciya waxaa ka mid ah qiraa'atu siyaru naajixiin dadka najaxay dadka waaweyn siiradoodii iyo taariikhdoodii in la akriyo lidalika siyarkan hadda laydiin akrinayo mid kasta wuxuu kugu bixin camalka kaas kii cibaadadiisu badnayd wuxuu kugu bixin cibaado inaad ku dadaasho kii cilmigiisu badnaa wuxuu kugu bixin inaad cilmiga barato kii cadaaladiisa iyo xukunkiisu caadil ahaa wuxuu kugu bixin haddaad ummadda wax u qabato inaad caadil noqoto kii jihaadka iyo qiyaadada iyo xakiimka ahaa waxay kugu bixin sidiisii inaad ummadda u hogaamiso ama u jihaado ayay kugu bixin lidalika macnaha siyarkan laydinkugu sheegayo inaad isaga raaxaysataan oo ku macaansataan maahane waa in lagu daydo oo hadba meesha uu kani ku horeeyo looga daydo lidalika dadka naajixiinta noocaasa markaa akhriso waxay kugu bixinaysaa marka himadaadu inay kor u qaado oo tiraado alla ileh markaad akhriso ibrahim ibn adham fudayl ibn ciyaad cabdullah ibn mubarak malik ibn dinar dadka cubaada ah ee zuhaada ahaa eed aragto cibaadaadkoodii curwa ibn zubayr iyo dadkay kamid ahaayeen salafkii waxaad arkaysaa marka cibaadadaadii adigoo markaa maaragtay ciil kaambinayo le meesha waxba kuma haysid lidalika cala alaqal xoogaa dhaqaaqa marka inaad samayso cibaadadaadii wax ka bedesho sunankaaga aad wax ka bedesho soonkaaga wax ka bedesho waxun markaad aragto culimadii xadiiska iyo rijaalulxadiis iyo jarxi watacdiil iyo xadiiska si u dhiraandhirin jireen iyo fiqhiga iyo istinbaadka iyo markaad aragto alle waxa kugu bixinaysaa meesha ka kac cilmi meesha kuma haysida waa inaad marka raggaa ku dayatood wax barato wahaakada mid kasta ood marka ku dayato xataa waktigan xadiiska ah kutub waxaa jira naajixiin la yidhaahdo oo waktigan xadiiska ama dad siyaasi ku najaxay ama mukhtaracaadka iyo muktashafaadka iyo waxyaabaha lasoo iktishaafay ku markaa maaragtay najaxay kullu markaas aad aragto waxaad marka ay kugu bixinaysaa inaad marka tilaabo horey u qaado hooyo kasta markay akhriso siiradii rabiicati ra'yi cabdiraxmaan rabiicati ra'yi caalim almadina sheikhu imaam malik hooyadiisay wiilka u tarbiyeysay ee aabihiisoo maqan 30 sano ay caalim uga dhigtay hooyo kasta waxay ku bixinaysaa inay taasoo kala noqoto ninkii la yidhaahdo Thomas Addison oo la yidhaahdo wuxuu iktishaafay ama
isagu soo saaray iftiinka ama nalka misbaaxa kahrubaa'iga ama nalka hooyadiisu fadliga u celiya wuxuu leeyahay haddaanay hooyaday jiri lahayn waxba ma aanan noqdeen waayo Thomas Edison saad la wada socotaan iskuulka waa laga soo ceyrshay macalinkiisu wuxuu yiri waa damiin ardayna wax lama qaybsan karayo ornaga sanadkii koowaad iskuulka waa laga soo ceyrshay hooyadiisa marka taxaddi samaysay isagiina waxay tiri taxaddi baan sameynaa waa inaad taxaddiga ay la samaysaa taxaddigu waxay tahay inaan tuso macalinkan inuu been sheegayo inaan u dhaqaaqo waxay tiri marka taxaddi baan sameynaa aniga adiguba hatta aabis iskuul macallin khaas ah u qabatay duruus khaas ah u samaysay aabis hatta lacagtii uu ka joojiyay hooyadiisa ku far adeegtay Thomas Edison la yiri iskuulka caadiga ah wax kama qaban karo waa ninka sajilay ama record gareeyay 1993 براءة اختراع waxa la yiraahdo yani براءة اختراع wuxuu اكتشافay oo uu qaatay اكتشاف aan looga horeyn 1993 shay nalka ugu caansan oo wada garanayna hooyadiisa ku mintiday marka akhriso hooyada siiradeeda ama hooyooyin kale oo fara badan ama aad aragto naftirkiisa siiradiisa iyo dadka la midka ah xadiiska iyo اكتشافyada iyo tibbiga iyo handasada iyo cilmiga saas marka aad akhriso waxaad marka fahmaysaa in dadkaas aysan waxba ku dhaamin laakiin dhaqaaq iyo xaraka laga rabo marka intaas oo dhan waxaan ku soo gabagabaynaynaa oo qodobka sagaalaad oo horay u dhaqaajin kara qofka himadiisu inuu yahay quwwatul iimaan billah صحيح meelba waxba gali kara filidaalka meel badan buu qofku isagoo aan ilaahay rumaysnayn ka shaqaysan kara laakiin markuu qofku ilaahay rumaysan yahay oo muslim yahay oo mu'min yahay oo iimaankiisu weyn yahay waxaasoo dhan way sii kor qaadaysaa maxaa culumo ama dad joogay dhowr boqol oo qarni ka hor cid ku bixinaysay iyo cid ku riixaysay ka hor hadda waxa laga yaabaa qolooyinkan fursado badan inay haystaan iskuulkiiba meel kasta iska yaala tashjiici baa yaala xukuumadii baa yaala maal baa la siinayaa kan laakiin culumadii noolaa muslimiinta noolaa qarnigii labaad ama saddexaad ama afraad ee hijriga ayagu wax intaanu imkaaniyaadan aan haysan maantana arday loogu yahay cilmigii iyo iktishaafaatkii ay gaareen nin kastoo maanta raba inuu iktishaafkaas gaaro ay qasab ku tahay inuu culumtoodii dib ugu noqdo ama uu ka faa'iideysto waxa ku bixinay iimaan bay ahayd ay rumaysan yihiin inay waxaan alle ugu dhawaadaan ummadoodana wax ugu qabtaan lidaalika ilaahay waa kan oranaya waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum nabiguna waa kan ku ducaysan jiray allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasl ilaah waxaan ka magan galay ajis iyo kasli ayaan ka magan galay lidaalika ajis iyo kasli baa haye waa in laga kaca meesha ummadda haya waqtiga xogaa waa sii dheeraaday marka waxaan wasoo uruurinaynaa qodobka lixaad wuxuu ahaa qisas bacd asxaab alhimam alcaaliya inaan dad himadooda caali tahay wax yar ka sheegno si ay noogu noqoto bes wax dafci ah oo aan ka shidaal qaadano wax badan waad akhriseen kutub badan waad akhriseen ama kuwa muslimiinta ama kuwa kale ama kuwa diin ama kuwa maadi wax badan waad akhriseen laakiin meel waxbaan ka duwan baan rabaa inaan wax ka tuso ah dadka laba qof baan idin soo qaaday bes labada qof marka waxay tahay waxaan u soo qaaday waa dadka la yiraahdo mucaaqiinta ama disabled waa dadka lixdoodii lixaad aanay u dhamayn lixdoodii lixaad dib ku dhacay qofkaasu wuxuu mudan yahay ama ummadda ka mudan yahay in isaga la saacido laakiin markaad aragto qof noocaas ah oo isagu inta ka gudbay inuu wax noqdo u gudbay ummadii inuu saacido miyaanay ahayn marka arrin himma caaliya lagu bixinaysa war qofka mucaaqa ama disableka ama curyaanka ah ee dhibku ku dhacay ee isagu ummadii ka fakarayo ummadii wax u qabanaya xagee jooga anigii marka maaragtay lixdeedii lixaad kaamilka ay ahaayeen ilaahay caafimaadka kaamilka ay siiyay qisada koowaad waxay tahay qiso gabar idinla joogta idinlama joogtay way dhimatay laakiin dhulka aad joogtaan ka dhalasay oo Mareykan ah oo la yiraahdo Helen Keller wala laga yaabaa qaarkiin ama in badan oo kamid inay akhriyaan Helen Keller gabar reer ka dhashay aristocracy ayay ahayd reer sare oo macnaha waxaysta gabadha marka imtixaan ayaa isaga dhacay iyadoo yar sanadkeedii shanaad markay ku jirtay ayaa iltihaab ama infection wax la yiraahdo maskaxda uga dhacay gabadhi markii iltihaabkaas ama infectionkaasi madaxda uga dhacay
waxay weyday maqalkii iyo araggii iltihaabkii ku dhacay wuxuu baabi'iyey inay indhihii inay wax ku aragto iyo dhegihii inay wax ku maqasho indhihii iyo dhegihii bay weyday adigu ka bacdina muddo ka bacdi de indhahan iyo dhegahani waxay saamaxayaan qofku inuu hadlo maadaama hadal barad ay ahayd oo hadalkeedu bilow ahaa 4 jir 5 jir ay ahayd waxay weyday marka de inay marka hadal barato oo hadalkii ay kalimaadkii sii barato si ayay weyday lidalika waxay noqotay marka qof aan indha lahayn aan dhega lahayn aan hadli karin oo hadal aan aqoonin ayadoo reerkoodii isku dhibtoodeen ayaa waxay soo heleen gabar bal macallin u noqoto oo murabbiyad ah iyagu cilmi bay baraysaa isma lahayn laakiin murabbiyad u noqoto bal cuntada siisiiso wadwado xoogaa banaanka soo marmarsiiso mashquulisa oo aan Sullivan la yiraahdo ayay u heleen aan Sullivan ajiib waxay ku ahayd marka waxay ahayd qof hadda ka hor indha beeshay oo indhaha loo fiiqay oo indhihii Ilaahay u soo celiyay ayay ahayd waxay marka juhdi ku bixisay waxay garanaysaa qof indhala iyo waxa uu dareemi karo ayay garanaysaa way soo martay iskaba siidaa qof dhagala iyo qof aan hadli karayn juhdi marka waxay ku bixisay gabadha yar inay kasbato waxay ku saacidi kartaan ay ku saacido markii waxa jira wax la yiraahdo dariiqatu Braille waxa la yiraahdo Braille waa nin ana waxaan filayaa Australian inuu ahaa wuxuu marka alifay dadka indhoolaha ah hab qoraalka lagu baro oo ah dhibco fartu ay taabanayso oo marka dadka indhoolaha ay wax ku akhriyaan markii hore marka gabadha iskuul noocaas la geeyay dariiqada Braille ayaa wax lagu baray si ay farta wax ugu barato laakiin aan Sullivan oo musaacidadeeda ah ama caawiyaheeda ah ayaa waxay keentay in gabadhan hadalka ay barto waxay marka bilowday in ay xuruufta barto laakiin waa qof dhagala waa qof indhala waa qof aan hadlayna say xuruuf u barin waxay bilowday in ay ku tababarto inay barto xuruuftu say dhuunta uga soo baxayaan lidalika waxay bartay farteeda suulka iyo sababada ama murugsatada farta la yiraahdo ay fardhaxada saddexdaas inay midna sanka u saarto midna afka saarto midna xunjuradeeda ama dhuunteeda saarto oo xaraf ay u barto xarafka soo baxay waa maxay yaani midan yar ee jiran waxay saaraysaa saddexda farood oo mid suulkeeda iyo farteeda iyo fardhaxadeeda ayay waxay saaraysaa dhuunta macallimadeedu marka hal xaraf ayay muddo baraysaa xarafkaas saas inuu yahay 20 sano u fiirsada 20 sano ayay ku qaadatay alphabetical marka inay barto waa arin aad u culus alphabeticalka qof kan fiyow uu maalin ku baranayo ama laba ku baranayo aan Sullivan iyo ardayadeedii yarayda indhaha iyo dhagaha iyo afka la'ayd Helen Keller waxay sabreen oo ku sabreen 20 sano inay xuruuf hijaiga ama alphabeticalka ku bartaan 20 sano bal sabarka qofkan intuu la egyahay fiiri laakiin markay xuruufta dhexda marsiinaysay oo muddo ay soo dhadhaweysay ayay waxay geysay jaamacada Harvard waad fahmi kartaan qofka wax bartay ama qofka Mareykan jooga ama qofka jaamacadaha yaqaana macnaha ay leedahay jaamacada Harvard waad fahmi kartaan Mareykanku jaamacadii badan oo sareeyo leeyahay laakiin haddana marka farta la fiiqayo la leeyahay qofkan waxba ugama dambeeyaan waxa uu leeyahay qofkaasi Harvard buu ka baxay sida marka Ingiriiska laga hadlayo lagu leeyahay Oxford ama Cambridge ayuu ka baxay ama lagu leeyahay Faransiiska marka laga hadlayo Sorbonne buu ka baxay gabadhii yareed ee indhaha la'ayd ee dhagaha la'ayd ee in afka aan aqoonin 20 sano ayaa lagu tarbiyeynayay marka xuruufta inay badato ka bacdina waxa la geeyay ma aha markay dhamaysay ma aha waa markay meel dhexe marsiinayso ilaa 10 sano ay waday ayaa waxa la geeyay jaamacada Harvard waxay noqotay baa la yiri qofkii ama gabadhii u horeysay ee jaamacada Harvard noocaasa saddex icaaqo qabta dhago iyo la'aan iyo indha la'aan iyo hadal la'aan oo jaamacada Harvard laga sajilo ama marka maaragtay la geeyo ayay noqotay ayada marka macallimadeeda ku saacidi jirtay muxaadaraadka iyo taabicidooda iyo la socodkooda jaamacada ayayna ka baxday iyadoo saas ah darajo fiican oo darajatu sharaf ahna way ku soo baxday mutarjimad bay noqotay waxay keentay inay qasiidooyinkii Roomaankii iyo waagii hore ay Ingiriiska u tarjunto jaamacadii ayay keentay in macallin ay ka noqoto muassaso ama hay'ad
dadka indhaha la saacida oo u gargaarta ayay qayb ka noqotay waxay u safri jirtay si mu'asasadaas ay lacag ugu soo arooriso tasawwur bal ka waran qof indhala oo dhagala oo aan hadlaynin oo hadalkii waayay ayaa dadkii indhaha la isagu wax u raadinaya حتى waxay noqotay muallif kutubta qora ayay noqotay oo kutubteedu luqado badan loo sii sajilo kelmadda marka waxay tiri kelmad cajiib ay waxay tiri waxaan oo dhan waxa igu bixiyay tiri inaan la tartamo gabdhaha wax arkaya wax maqlaya qofka caadigo horta muxuu ka faacan yahay qofkan cibaadada badan qofkan quraanka xifdisan qofkan ilaahay lacagta badan siiyay qofkan PhD ga ama masterka ama licensiga ama wata horta muxuu ka fiican yahay waa adoo kale dadaal buu baxshay faqad dadaalka uu bixiyay inaad bixiso ayuun baa ku laaman kaliya lidalika gabadhani juhdiga waxay u martay waxay tiri waxaan oo dhan waxa igu bixiyay tartan aan kula jiray gabdhaha aniga aynigayga laakiin iyagu wax arkaya waxna maqlaya si aanay isugu malaynin inay iga fiican yihiin inaan la mid ahay aysan iga fiicnayn ayaa markaa maaragtay igu bixiyay tusaalaha labaad waa tusaale kaas ka agdhow waa ninka la yiraahdo Muhannad Jibril Abu Wudiya dad maqasheen Muhannad Jibril Abu Wudiya waa nin muslima waa nin Sacuudiyana ninkaasi nin dhalinyaro weeye waa dhowr 20 jir hadda 1400 iyo wuxuu dhashay 7 waxaan filayaa inay ku beegan tahay 1987 ayay ku beegan tahay waa nin dhalinyaro dhowr 20 jir Muhannad nin fikrad badan oo aqli badan oo dadaal badan buu ahaa nin meel fara badan higsanayay buu ahaa nin islaha aad samaysid iktishaafad fara badan buu ahaa isagoo bilaabay oo dariiqii haya oo dhigta kulliyadda engineering-ka dhigta ayuu shil galay shilkii wuxuu ku waayay iyo intuu kulliyadda inuusan gelin baan u malayn oo secondary uu dhiganayay wax kala xasuustee ayuu wuxuu ku waayay indhihiisii iyo lugna wuu ku waayay lugna way ka go'day waana indhabeelay Muhannad Jibril Abu Wudiya kumay bixin inuu handasadii ama engineering-kii iyo wixii uu waday uu ka tago kumay bixin inuu u noqdo faculty ka khafiifsan oo artist ah oo iska sahlan kumay bixine bal waxay ku bixisay inuu sii lama laabo wuxuu ka takharujay ama uu ka baxay jaamacadda Malik Fahad ee batroolka iyo macaadinta ayuu ka baxay qaybta dayraan al-fadaa waxa la yiraahdaa hawada sare qaybta qaabilsan hawada iyo fadaaga ama space-ka qaabilsan ayuu ka baxay ilaa hadda wuxuu haystaa 22 baraa'atu ikhtirac baraa'atu ikhtirac waa wax aad adigu ikhtiraacday iktishaftay aan lagaaga horeyn oo aad record garaysay inaan lagaaga horeyn 6 kamida waa intuu indhaha lahaa 16 waa intuu indhaha beelay 16 waa intuu indhaha beelay 6 oo kamidka ah waxa kamid ah 6 ka horeysay indha beelid la'aanta wuxuu jeclaystay dadka indhaha la inta badan wax ma qoraan haday qoraanna sadarkay ka leexleexdaan waayo ma u jeedaan sadarkii wuxuu soo iktishaafay 2 arrimood oo kala ah kufuuf ama gloves waxa faraha la gashado gloves gacanta la gashanayo iyo qalin isla socda labadoodu waxay qofka ku saacidayaan inaanu sadarka ka leexan gloves kaanu gashanaya qalinkana uu qabsanaya sadarka bilowgiisa ayaa loo saaraya khalas ama saladka bilowgiisa ayaa marka horeba loo calaamadinaya oo waxa loogu calaamadinaya wax ishaaraad yar yar halkaas ayuu marka qalinka ka bilaabaya sadarka qalinkaas sadarka ka leexan maayo ilaa dhamaadkiisa hadhow markuu dhameeyo dib uu soo noqonaya sadarkii ku xigtay labadaas arrimood oo gloveska ah iyo qalinkii uu sameeyay waxay noqdeen baa la yiri wuxuu noqday qofkii u horeeyay isagu isticmaalay kadib markuu shilkii ku dhacay oo indhaha uu beelay dad badan oo indha la'aana waa ay ka faa'iideysteen ilaa kadibna 16 ikhtirac ayuu sameeyay oo isagoo indhala uu sameeyay jamciyado fara badan ayuu sameeyay oo saacida dadka waxyaabaha ugu badan waxa kamid ah ee uu ku fakarayo wuxuu sameeyay mashruuc la yiraahdo mashruuca 4 miim xarafka miim 4 miim 4 miim marka maxay kala tahay waxa weeye 4taas miim مليون مسلم مخترع محترف
مليون مخترع مسلم محترف إن هدفك يحاول يري أنجاره مليون قف أو مخترعين أو اختراعات سماية أو عالم كاختراعات كسب بيريه أو مسلمين أو كل جود محترفين يعني هوش يقانا ما هقف عادي ما إذن وأفر من مليون مخترع مسلم محترف مشروع عاسو ليه هاي توبركي الرئيسي وحو أفري وهي هذه سي مؤسسات كساعدة أي أفرين 8 كن أو أرضي أو قبل يويل الإسوجرة أو مشروع عاس لغو عاسي وإن دولة الله سعود النكاس وأنا لغو أين إذن فيري waxa kugu dhaca waasaad u aragto hadii markii shilku ku dhacay oo isu arki lahaa inuu dhamaaday bas meelihiisa iska joogo ama wax yar haduu fiican yahay wax yar oo faculty yar oo khafiif oo si barbarto waa soo isu arkay laakiin wuxuu isu arkay inaanay waxba ka dhimine waxaan isu arkay buu yiri shilkii ugu dhacay waxaan u arkay buu yiri sida falaarta marka la tuurayo loo jiido quwadda falaarta ama warafka marka la jiidayo loo jiido ayaan shilkaan u arkay yiri inuu jiiday lidalika xoog inaan ku socdo ayaan isu arkay buu yiri hadalkiisu badan yahay laakiin waqtiga oo yar awgeed waa iska soo gaabinaya marka hadalkiisa arinta muhiimka ah marka waxay tahay oo horeyna aan u sheegnay habeenkii hore maantana aan ku daraynaa qofka himma caaliya leh waa qof sabar leh waa qof dhabar adayg leh waa qof mintid qof markii u horeeyo jugta u horeeyo dhacdada ka carara maaha falidalika farqiga u dhaxeeya qofka xamaasadu wado iyo qofka himma caaliya wado waxa weeye sabarka iyo sabar la'aanta himmada waxaan ka wadaa qorshaha iyo qorshe la'aanta amalka marxaladaysan iyo amalka aan marxaladaysnayn waxa la sheegaa ninka la yiraahdo Taymurlanka oo ahaa qaa'id Mongooli muslim sheeganayay laakiin haddana dib badnaayo dad badan oo muslimiin laayay ayaa waxa la sheegaa Taymurlanka isagoo dagaalada kamida ku jabay ayuu wuxuu arkay baa la yiri oo quusto inuu dagaalka ka baxar raba ayuu meel fariistay marka wuxuu arkay baa la yiri quraanjo dhagax fuulaysa hortiisa dhagax weyn beerta marka quraanjadu inay fuusho way fuushaa way ka soo dhacdaa way fuushaa way ka soo dhacdaa ishu ku haya quraanjadii yarayd waxay ku qaadatay baa la yiri 17 jeer inay dhagaxi fuusho ugu dambeyntii markii 17aad ay fuushay 16 jeer ayay soo dhacday baa la yiri markii 17aad bay fuushay ninka marka waxa la yiri wuxuu yiri baa la yiri sidee quraanjo oo saan daciif oo u yarna ay 16 jeer ugu sabirtay oo ugu adkaysatay inay ku celceliso aniguna hal mar aan ugu niyad jabay oo dagaalkii uga baxay waxay marka ku bixisay in uu dagaalkii ku noqdo dagaalkii sidoo waxaan ka wadaa himmada caaliya macnaheedu waxa weeye inaad ku celceliso amal kastood bilowdo waxa laga yaabaa suhuulada aad filayso iyo sahalka aad ka filayso inuusan ahayn laakiin inaadan calan cad hadiiba qaadane aad ku celceliso waxaan ku gabagabaynaynaa oo khulaasadii aan ka dhigaynaa mahma iyo markasta haddaan niraahno himad sare hal la yeesho hal la dadaalo meel sare hal la gaaro kan umadu isku mid ma ahaanayso qasab waxa umadu inay kala harayso mid meel sare aad u sareysa gaara mid meel ku xigta mid meel ka sii hooseysa kan laakiin niyadii waa la wada hayaa isku daygii waa socdaa dadaalkii waa socdaa waxaan marka ka wadnaa inaad noqoto qaybta u dambaysa inaad sii noqoto marka waxa la sheegaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa wuxuu maqlay baa la yiri nin ilaahay bariyo oranaya Allahumma ij'alni min al-aqallin ilaahu dadka yar iga dhig aqalliyat hada anagu aqalliyadka waa ka cararnaa wax eebahay noqotay ilaahu dadka yar iga dhig Umar wuxuu ku yiri baa la yiri ya Abdullah maxaad ka wadaa arintu waa sidee wuxuu yiri baa la ninkii ya amir al-mu'minin waxaan maqlay ilaahay oo quraanka ku oranaya wama amana ma'ahu illa qalil nabiga nuux markii laga hadlayay ma ay rumayn illa dad yar mooye waxaan quraanka ka maqlay buu yiri ilaahay oranaya wa qalilun min ibadi ash-shakur waxa yar adoomada ilaahay ku shukrinaya waxaan maqlay buu yiri ilaahay oo quraanka ku oranaya wa inna kathiran min al-khulada illa yabghi ba'dhum ala ba'd
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كوا عمل كصالح سمينية وقليل ما هم ويريهم يعني وحن مركا كودا بو يري hadalkiisu wuxuu u dhacayaa dadkaas fiican oo yar dadkii kale markay caajisaan intaas yar ee Ilaahay uu amaaray ama shukriga ku amaanay ama amalka saalixa ah ku amaanay ama iimaanka ku amaanay inaan ka mid noqdo Umar wuxuu yiri baa la yiri kullu ahadin afqahu min Umar بالتواضع badan baa Umar caalim weey caalim umma weey walla socotaan xadiis Bukhari ee ku soo aroortay cilmigiisa nabiga riyadiisa laakiin haddana wuxuu tawaaducaya u leeyahay كل أحد أفقه من عمر تذكر عمر كفقيسا وهي وحلقة قضية بالذات إن عمر كم مغنيت وأيسن كتاجنين وحن سويديننا أيها الإخوة أقلية ذات مكمد نهي أقلية ذا الشكرية أقلية ذا عملك صالحة أقلية ذا إيمانك أقلية ذا علمك أقلية ذا أمد الساعدة ساعدات ذا أقلية ذا وانا ضدك عن لانها همة العالية مركة همة العالية واحد اوقاتها اقلية انيهين ضد ير انيهين ضد كاس ان حاولنا سان اوغا من نقول لهين ان حاولنا ان شيء كستكو كن نقولنا هدي حتى ضدكو اي هران ادوغو كو نقول ضدك او هركع maxaad u sugaysaa adiga in lagu horkaco tusaale lagu noqdo maad adigu dadka tusaale u noqotid oo du horkacdid oo amalka iyo cilmiga iyo cibaadada iyo wax qabadka aad u horkacdid oo tusaale أدو نقط أول كقفك اللي إلى شريعته وأمانتي إلهي وأول هو الأول والآخر إلهي وأول والله أماني نبي وحويري وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مالك لنا وأنا أول المؤمنين والله أماني والنبي سجى أول كيئة وأمدن أول كيدي أو أمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بتكلوه الرئي إسلامي أمان تاس أي مذيهين وحاصلا وأمان كعبدوا وأول واتي آياته أهين مركا ما ركتي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكر وهكذا صلاة والله سعنا نبي وطولها لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول حتى وأنا لكتر كرسي صفك هرئينا صلاة كقل وحاصرا وحاصرا مركا إنا الأول نغطوه ومضى أهر سعدوه همي قاقو وينادو مركا الدلال بيقوبها أنت إله وكان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين حكمة عربيتنا وحي ترى ولا بد دون الشهد من إبر النحل عسل مدوني سينا تسوق بسطه عسل مرة بتاعنا تسوق وسطها وقول بركة وحكو قنيني كرة أو كدوري كرة شنيدة إربط ديدو ويكدوري كرتا لذلك وحا أن أصعنا يماشى عن ربنا وحا كسو كي يقرح فربنا هلو صبره هذا الكواب بدي وقت الدبات جوكتان همجي نصر أو مالنكي هورا أن يدن كب شاريين الله يدن كعب المريو انت عشان هذا الكي يكسو قبقبين يا وحي أن أصيبنينا فمن الله وحي أن قفنينا فمن نفسي ومن الشيطان وبالله التوفيق والله أعلم الصواب وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا خير الجزاء. رب سبحانه وتعالى علمك عقلك عملك رب سبحانه وتعالى هكذا إخلاص رب سبحانه وتعالى هكذا ألنا سبحانه وتعالى هنقو أنفعه محاضرة تاني وحي أهد محاضرة دي اللبات همة العالية رب سبحانه وتعالى ميسانك سحسنات كوصار الشيخة إن ولا لها الدنيا الدافية ذا نقل ولا لها دقيسان دونها دمان تنبا رب سبحانه وتعالى إنكو أنفعه إنه نأسو دعينا الشيخ إنه يجيدي الشيخ عبد العزيز على عرتن ولا لي أنت وحينا كل ما محاضرة قيم كاي همة العالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.